ka cayri gurigaaga yaanyuurta haddii aad ku aragto calaamadahan. maxaa yeelay shaydaan ayaa ku dheehan oo isu soo ekaysiiyey. daawadayaasha qiimaha badan oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horreyn waxaan ognahay yaanyuurta ama bisadu inay tahay xayawaan naxariis badan ayna fadligeeda ku soo aroortay axaadiis badan oo laga wariyey nabigeena sallallahu calayhi wasallam. laakiin ogow taasi waa bisada caadiga oo aysan shayaadiin isu soo ekaysiin. laakiin axaadiistaas oo dhan waxay ka sheekaynayaan waa bisada caadiga. aniguna maanta waxaan ka hadlayaa waa bisada ay isku soo dheeheen shayaadiintu. lamana dhihi karo bisad caadiya. ha hilmaamin daawade inaad muuqaalka like saarto, siina faafido, kanalkana subscribe saarto, gambaleelka u furato. bisada uu jinnigu isku soo ekaysiiyey waxaa isku mid ah inuu yahay jinniga taabashada wax ku dhibaateeya, ama inuu yahay miduu saaxir u soo adeegsaday inuu u fududeeyo waddo uu wax ku dhibaateeyo. waxaa laga yaabaa inaad isweydiidid su'aasha ah, suuragal ma tahay inuu jinni isu ekaysiiyo qaabka bisada? haa, waa suuragal. tijaabada ayaana ah daliilka ugu wanaagsan oo la aqbali karo waaqican aan ku noolnahay. tijaabada ka sokowna waxaa isku raacay rag badan oo ahlu cilmi ah sida ibnu taymiya, ibnulqayim, shawkaani iyo rag kaloo badan. aan u soo noqona tijaabada sidaan ka soo xiganay baaxidka weyn ee Muxammad al-Azhari ee ay ku xiran yihiin malaayiin qof oo muslimiin ah ayaa ilaahay ugu dhaartay inuu uga maqlay labadiisa dhagood mid ka mid ah saaxiibadiisa ay isku dhow yihiin, kana mid ah ragga quraanka wax ku daaweeya. wuxuu leeyahay sheekhaas quraanka wax ku daaweeya waxaa la igu yeeray mid ka mid ah dadka la sixray si aan ugu daaweeyo kalaamka ilaahay. markaan gurigii gaaray ayaan arkay qofkii sixranaa oo gurigii inta koray raba inuu iska soo tuuro, laakiin ilaahay amarkiisa waan ka gaaray. markii aan bilaabay akhrinta ruqyada sharciga waxaa si kadisa noogu soo muuqday bisad leh muuqaal cajiiba, yacni qaab la yaab leh u eg. annagoo la yaabnay qaabka cabsida leh oo aan u aragnay ayadoon albaabna ka soo gelin meeshana joogin, wuxuu ilaahay ugu dhaaranayaa markuu ku rusheeyey biyaha lagu akhriyey ruqyada sharciga inay soo dhacday yaanyuurta oo meyda. waxaan haynaa sheekooyin kale ku saabsan, laakiin waxaan diidaynaa inuu muuqaalku dheeraado. daawadahayga qaaliga ahow, intaana kuu sheegin calaamadahan aan kuu ballan qaaday, aan isweydiinno haddii aan aragno bisad leh mid ka mid a calaamadahan ma dilaynaa, ma xabisaynaa, ma dhibaataynaynaa? dabcan maya, mana bannaana arrintaas. ma bannaana dilkiisa, xanuujintiisa iyo in la xabiso midna. suuragal maahan inuu jinni caadiya yaanyoor u eg yahay, laakiin waxaa suuragala inuu ku dhex jiro oo isu ekaysiiyey. haddii aad disho ama aad xanuujido asagu wuu ka baxayaa, laakiin waxa dhimanaya waa yaanyuurta maskiinta. dembi weyn ayaadna ku mutaysanaydaa. maxaa yeelay nabigeenna ayaa yidhi naag ayaa ku naar gashay yaanyoor ay xabistay, ayse cunno siin, irsaaqadeedii kalena ay ka xabistay. ka cayri gurigaaga haddii aad ku aragto mid ka mid a calaamadahan adigoon dilin oo dhibaatayn. hadda ayaan bilaabaynaa sheegidda calaamaadkan calaa barakatillaahi ee soo dhowow. laakiin si codsiya oo aan amar ahayn muuqaalkan lag iigu saar, kanalkana subscribe saar oo gambaleelka u furo, siina faafi. calaamada koowaad ee aad ku garanaydo yaanyuurta ama bisada inuu shaydaan ku dheehan yahay waa inay bisadu ku wareegsato hal goob oo iska daba wareegto. haddii aad gurigaaga ku aragto yaanyuur hal meel ku wareegaysanaysa, mathalan haddii aad handado ama aad lugtaada ku dhufatana meesheedii ku soo laabanaysa, ka digtoono walaalkayow yaanyuurtaas, maxaa yeelay shaydaan ayaa isku soo ekaysiiyey. calaamada labaad ayaa ah inay cararto markay maqasho qur-aanka kariimka, iyo inaysa cararayn oo joogaydo markay maqasho heesaha iyo muusiga. adiguba tijaabi yaanyuuraha qaar markii ay maqlaan qur-aanka kariimka oo la akhrinayo, gaar ahaan suuratulbaqara, mucawadateynka, aayatulkursiga, markay maqlaan aayadahan barakaysan way cararayaan, guriga dhanna ma lagu arkaayo. dhanka kale markay maqasho heesaha ama muusiga si degan ayay u fariisanaydaa, ayadoo indhaha isku dhegsanayda oo dhagaha u raaricinayda ku raaxaysanayda. maxaa yeelay shaydaanka mar walba uu qur-aanka kariimka maqlo wuu cararaa, markuu heese iyo muusig maqlana wuu u soo cararaa. yaanyuurta haddii aad ku aragto calaamadan iska ilaali, maxaa yeelay shaydaan ayaa isku soo dheehay. calaamada saddexaad waa inay yaanyuurta kuusoo hor istaagto weji ka weji, macnaha si toos ah sida qofku handadaayoo kale. maxaa yeelay yaanyuurta caadiga waa mid jilicsan oo naxariis badan, qofkuna uusa dhibsanayn. haddii aad handadana way kaa tegaysaa oo amarkaaga ma diidayso, laakiin markaad aragto iyadoo qaarka dambe dhigatay lugaha horena ku istaagtay si xunna kuu fiirinaysa sida inay ku handadaysoo kale, haddii aad handadana maba tegayso ilaa inaad dhib gaarsiidid maahane. mathalan haddii aad wax ku dhufatana waxay tegaydaa iyadoo cuslaysanayda tegidda, sida inay amarka aad siiday iskala weyntahoo kale. bisada noocaanana iska ilaaliya walaalaha muslimiinta ahow, maxaa yeelay shaydaan ayaa isku soo dheehay. waxaa laga yaabaa daawada inaad isweydiidid midabka ay u eg tahay yaanyuurtu wax cilaaqaa ma la leeyahay arrintan. mathalan dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin inuu shaydaan yaanyuurta madow oo kaliya isu soo ekaysiiyo, ama midabka indhahooda, maxaa yeelay qaar ayay indhahoodu jaallo yihiin, qaar ayay indhahoodu gaduud yihiin. walaalkayga qaaliga ahow, taasi waa abuurista ilaahay, wax cilaaqaana lama laha. noocii ay doonto iyo midabka ay doonto ayay yeelan kartaa. muhiimaddu waa mid ka mid a calaamadahan haddii aad ku aragto ka digtoonow, maxaa yeelay shaydaan ayaa isku soo ekaysiiyey. calaamada afaraad ayaa ah inaysan yaanyuurtu ka baqin dadka cusub. waxaan ognahay yaanyuurtu inaysan ka baqin badanaa
dadka guriga la jooga ama ay aragto badana, laakiin hadday imaadaan dad cusub ama dad martiya way ka cararaysaa. haddii ay yaanyuurtu kasoo ag dhawaato dadka cusub, ka digtoonow iskana ilaali, maxaa yeelay shaydaan ayaa ku dheehan. walaalaha muslimiinta ahow, haddii aad aragtaan yaanyuurtu iyadoo samaynayda ficillo cajiiba ama ficillo aad la yaabto, ku dadaal si degdega inaad gurigaaga uga cayrido, weliba ka dheeraydid ilmahaaga, maxaa yeelay dhibaato ayay gaarsii kartaa. wuxuu leeyahay baaxidka weyn ee Maxamed al-Azhari, mid ka mida walaalaha ayaa waxayna tiri, waxaa guriga noo joogi jirtay yaanyuur aan ku arki jirnay arrimo cajiiba, ficillo la yaab lana samay jirtay, laakiin nasiib xumo xilligaas kumaanan baraarugin. ilmo yaroo saqiira ayaana mar walba ku dhaganaa oo ku cayaari jiray, mana aysa faaruqi jirin. bisadii ayaana dhimatay, mar bil laga joogo ayuu u dhintay wiilkii yaraana, isla cudurkii ay u dhimatay. cudurkan uu wiilkaygu u dhintana ma ahayn mid la yaqaano. calaamada shanaad oo u dambayda ayaa ah inaysan ka cabsan codadka lagu argagax gelinayo. saaxiibayaal, yaanyuurtu waa noolo jilicsan, qalbigiisuna waa qafiif. haddii uu maqlo cod uu ka argagaxana, wuu baqayaa wuuna cararayaa. tusaale ahaan inay laba shay u dhoweyd isku dhacaan, ama shay inuu dhulka kusoo dhaco kale, yacni waxyaalihii jugahayo agteeda ka dhacaya inaysan ka cararayn. yaanyuurta caadiga way ka cararaydaa waxyaabahaas. haddii aad aragto yaanyuurti oo waxyaalo argagax leh ee agteeda ka dhacayaan aysan ka cararayn, ka digtoonow, waxaa suuragala inuu shaydaan isku soo dheehay ama uu isu soo ekaysiiyey. muuqaalkeenna maantana intaas ayuu ku egyahay. annaka iyo adinkaba allah nagu anfaco. fiidiyowa xaqiisa siiya. fii amaanillaah.